السلام عليكم. waxaa jirtay tuulo dad ay degan yihiin faqiiriin ay ahaayeen gibigoodna diiman iyo amaah ay kala qaateen. qof walba oo tuulada jooga nin deen laga raba ayuu ahaa, asagana qof deen buu ka rabay, asagana waa laga rabay. tuulada waxaa yimid nin dalxiisa ah oo taajir ahaa si uu u nasto ama waqti uu qaato magaaladiisa ka soo tagay. tuuladan ayuu soo maray. tuuladii markuu yimid wuxuu wareystay meel hotel ah ama lodge ah la dego uu ku nasta ayuu weydiiyay. markaas waxaa loo tilmaamay halka uu ku yaalaa lodge-ka bax aadaalir. lodge-kii buu yimid wuxuu ku yiri ninka reception-ka fadhiyay waxaan u baahanahay qol fiican hadduu i qanciyo $100 hadduu yahay waan bixinayaa ayuu yiri. markii loo sheegay inuu $100 yahay kadib $100 ayuu bixiyay. qolalka ayaa la sii tusayay. inta qolalka la sii tusayay ninka milkiilaha ee hotelka lahaa ama lodge-ka lahaa nin baa deen ka rabay $100 intuu qaatay wuxuu geeyay ninka waanla ah oo deen ka rabay ayuu siiyay. ninkii kawaanlaha ahaa waxaa deen ka rabay in xoolaha iibiyo maxaa la yiraahdaa suuqa xoolaha joogay ayaa wuxuu ka rabay deen $100 ah. ninkii kawaanla ahaa $100 uu keenay ninka hotelka wuu qaaday wuxuu siiyay ninka suuqa joogay oo xoolaaleyda ahaa. ninka xoolaaleyda ahaa maadaama ganacsigiisa xoolo uu ku salaysan yahay mar walba uu xoolo uu qaato sida hore u soo sheegnayna qof baa deen ka raba asagana deen buu dad ka rabaa aan hore u niri dadka magaalada jooga asagana waxaa deen ka rabay nin xoolaha markii loo keeno coos u keeni jiray. dhigka banaanka ayuu ka imaan jiray magaalada ma dignin magaalada banaankeeda ayuu gaariga lahaa gaariga ayuu coosku ku keeni jiray. ninkii ayuu $100 farta ka saaray wuxuu yiri $100 ay iga rabtay waa kana. ninkii gaariga lahaa ee transporterka ahaa waxaa la yiri lacagta markuu soo qaatay kadib asagana waxaa ku soo dhacday maadaama bil maalin walba daily halkan uu imaan jiray hotelku uu ku nasan jiray ama lodge-ku uu ku nasan jiray buu soo xasuustay in amaahdii iyo deyntii iska yareeyeen laga rabay. ninkii hotelka lahaa buu u yimid wuxuu ku yiri niyo maanta way soo gashay lacagtii $100 bal iga gooy. $100 ayuu farta ka saaray. ninkii lodge-ka lahaa buwana lacagtii ay gacantiisa ku soo laabatay. markii halka maraysay ninka dalxiisaha ahaa ama taajirka ahaa magaaladii yimid ee $100 awal gacantiisa ay ka soo baxday wuxuu ku qanci waayay qolka la seexan lahaa. kumuusan qancin suu u wareeyay qolalka dhexdooda wuu soo laabtay. wuxuu ku soo laabtay reception-kii kumaanan qancin hotelkiina $100 gacantiisa ku soo celiyay ayuu yiri. milkiilaha hotelka lahaana $100 ayuu gacantiisa ku celiyay. marka halka marayso ninkii $100 jeebka ay ka soo baxday isla $100 wuu helay isagoonan meel seexanin isagoonan maxaa la yiraahdaa waxna ka maqneen. laakiin markaad u fiirsatid waxaad ogaanaysaa dadka magaalada idil deemaha iska rabay inay deen baxeen. bal u fiirso kaliya waxay u baahan tahay qaab fikir. ninka hotelka degan ninka kawaanlaha ah lacag buu ka rabay laakiin haddeer lacag la siiyo kuu muuqato arki maysid. aan ku dadaalno fikirkeena aan hagaajino si aan u deen baxno anagoonan 0% anagoo taagan. wassalaamu calaykum waraxmatullahi.